waxaan rabaa marka hore inaan salaamo xubnaha golaha wasiirada, xubnaha labada aqal, mudanayaasha ka kala socda hay'adaha dowladda iyo dhammaan shaqaalaha oo ah inaan la iloobo aysan ahayn ay tahay dadka ugu badan oo uu dhibka ku dhaco maalin kasta la hor taagan yahay loo yimaado. waxaan rabaa dadkaas inaa u sacbisaan runtii. intaas kadib runtii caawa wax badanaa la soo bandhigay oo dad badan ka qarsoonaa ay soo baxeen. dowlad dhiskeenna wuxuu ka soo bilowday runtii burburkii kadib 2000 waxaan maraynaa 25 sano. waxaa arkaysaa aniga 10 sano ka hor waxaan kusoo laabtay dalka. maalin dhaweed waxaan rabaa taariikh yar oo dhacday intaana gelin waxa kale inaan sheego. gabar yaroon dhalay aan waxaan usoo goynay ticket anagoona ogeyn welina aan la faafinin in maaragtay online lagu dalbanayo fiisada. markay tagtay laboorka Amsterdam waxaa la dhahay adiga Soomaalina kumaysan dhalanin oo Muqdisho kumaysan dhalanin. nootamkii markaa socdeen waxay qofkii Soomaaliya ku dhashay wuxuu lahaa in loo sameeyo gooni waa laga celiyay diyaaradii. habeenkii dad badan waa wacay markii dambe waxaa la ii fududeeyay inaan online dalbado within 45 minutes horta waxaan ku helnay fiisadii. ayadoo waliba ay jimcad tahay marka waxaa arkaysaa in 24 saac laga shaqeynayo systemka. muxuu faa'iido leeyahay marka ani meelaha ay taabanahay waxay tahay maadaama 3 milyan banaanka ay naga jirto oo inay noo imaadaan aan rabno caruurtooda inay noo soo celiyaan oo rabno fasaxyada iskuulka inay yimaadaan imaashaha dalkan ay imanayaan ay runtii keenayaan dhaqaale badan ay soo gelinayaan dalka meeshii wadamo kale la geyn jiray 15 sano ka hor ku soo dhiiradaan inay yimaadaan Hargeysa, Garowe, Muqdisho, Kismaayo inay imaadaan. runtii taas waxay fududeynaysaa ay sameynaysaa sida xawliga leh ee ku shaqeynaysa systemka uu ku shaqeynayo. muxuu qayb ka yahay marka wuxuu qayb ka yahay runtii amniga dalka. wuxuu qayb ka yahay runtii uu soo saarayo oo ka hor imaanayo musuqmaasuqa. wuxuu qayb ka yahay dhaqaalihii iyo kobac dhaqaale oo imaanayo ogaansho la ogaanayo qofka imaanaysa halkan muxuu yahay. markaan dib u noqdo oon aado meesha iyo sababta aan meeshaan caawi u joogna maadaama aan ka socdo guddiga dastuurka runtii 4 qodob oo ugu waaweyn oo dastuurka uu siiyey dowladda federaalka waa mid ka mid ah immigrationka oo mas'uuliyadeedu ay saaran tahay dowladda federaalka. lana rabo in si hufan loo maareeyo loo sameeyo. markii tallaabo la qaadana runtii dad badan ay dhibaysaa. dad badanaa waxay u baahan tahay in loo adkaysto u baahan tahay meesha laga yimiday iyadoo intii aan sheegay laga hadlaayo la fiirinayo la xaqiijinayo ay tahay amnigii dhaqaalihii musuqmaasuqii haddana waxaa loo baahan yahay in naxariis dhinaca kale ay timaado wada shaqayn dhab ahna ay ka wada timaado meelaha diyaaradaha ay ku kala deganayaan oo wadamada gobolada dalkeena meelo ka mid ay ku soo deganayaan wada shaqayntaasna hay'ado badan waxbarashada wada shaqeyso caafimaadka wada shaqeeyo maaliyadda wada shaqeyso iyadana immigrationka saas oo kale wada shaqayntaas in lagu dhiiriyo si loo fududeeyo hooyada Soomaaliyeed ee caruurta sidata ee rabta inay dalkeedii iyo deegaankeedii tusto meeshii ay ku dhalatay iyo meeshii ay ka timid. runtii aad iyo aad idin bogaadinaya aad iyo aad idin ugu hambalyeynaya. waxa kale caawa halka nooga muuqday oo aan hoos ka xariiqay xitaa hay'adaha dowladda si iskula shaqeynayaan oo aan loo kala maarmin dad dhigisti ha ahaato ID-ga oo la qaadanayo ha ahaato baasaboorkii ha ahaato wada shaqeyntaasana annaga dhan waxaan ku wada nahay runtii dowlad aan ku wada nahay oo ummadeena aan ugu adeegi karnaa. hambalyo sanadkan sanadkiisana waxaan rabnaa iyadoo meel fiican uu gaaray waxaan sugaynaa runtii baasaboorka cusub oo caawa anaga ballan qaadeen inuu noo soo baxo kaasoo fududeyn doono runtii dadkeena u safraayo dibadaha. aad iyo aad u mahadsantihiin.